guur waxaa ugu naajaxsan midka ninka uu aamuso. haddaad aragtaan dad muddo isqaba haddii mikrofoonada aan u dhiibin akhyaarta odayaasha meesha joogo ee 30 sano 40 sano guriga lahaa nin walba wuxuu ku badbaaday ma hadli jirin. haddaad hadashid oo wax walbaba kelmad aad ku jawaabid oo jawaab ay ka soo horeyso guurkaas ma socdo. walaalika waxa ugu wanaagsan ee dumarka lagu la dhaqmo waa la aamusaa waa la dhageystaa un kaliya. dhageysiga tirada badan adna stresska iska dajinaysa iyaduna biidillah subhanahu wa ta'ala kalimadeeda sheeganaysa halka waa halka kaliya marka lagu wadi karo. waxay dhahan anjax zawaaj ee binaadamka dhexmara waa ma yulaazimuhu zawju samta intu aamusan yahay buu gurigaasu uu dhaqaaqi karaa biidillah subhanahu wa ta'ala. marka guur laga hadlo badana anu waxaan dareemaa odayaasha un baa dhaqdhaqaaqa kursigu la ruxruxdaa laakiin kelimadu dadkoo dhan bay u dhacaysaa iyadu noocan ma way dareemi karaan. guur wuxuu rabaa marka dhowr shardi haddii la helo. shardiga koowaad ninka ragga ah haddii uu guursado waa inuusan gabadha ku mashquulin. labo hadduu guursado guriga waa inuusan noqon guri rucbi ama tarar uu ka jiro maantana hanjabaado ay jirto. saddex guriga waswaaskana waa in laga daayo oo shuqulada Yurub loogu yimid. shan waa inuusan qofka isagu nafsadiisa uu ka fakerin ee lamaanaha uu la joogo uu ka fakaro. talixaad mas'uuliyad inuusan ka baxsan. lixda qodob waxay ku salaysan yihiin age bay ku salaysan yihiin da'da dadka meesha fadhiya. marka badana waxa la hadli jiray dhalinyarada uu kaliya laakiin qof kasta da'da 20 jir ilaa 70 jir fariintan baan gudbinayaa. waxay tiri gabadhii oo dardaarmaysa waxay tiri hooyo haddii aad guursanaysid 20 jir ogow aduu kugu mashquulaya ma guriga kama baxay aduu kama ka dhamaanayo. صدّن هداد جورستين وهنجبات والله ونكفرية والله هداس دقش ونكفرية والله سدّح عنكو كفرية. أفرت أن ما دام جورك وكده هو وسواس بديه يلا صو هذا الشيء هالكي كتير أنت كصاد هذا ما كان كيكو شو كان سجريبا أفرت أن هداد جورس. كنت نديرنا إسقى مشكلنا على شو نبوح بيتر جرام كيس هدوه هلا وأكو ديني يا بيتر كا إسقى. اللي حدا نجير مركز لجارنا مرة بو عمامة بوسيتاي ضد ما كلا دعينا يا قربان كوجرا وكذا ما وين الجوري وشقاكم له. تضلات المركو جارنا عدي كدمال اللي ترى راسه يترماشن حومي يلا مركو قفل بو طبعا ايج بوجرا ايج كار الهي سبحانه وتعالى بركه لكن مسؤوليه دا ايده مسؤوليه اهميه ده له نبينا ونو شيغي صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق.